أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daawadayaal kusoo dhawaada channelka aqoon official haddii aad channelka cusub tahay subscribe saar muuqaalkan like garee saaxiibada la wadaag waxaan ku jirnaa xalinta imtixaankii fasalka sideedaad baartii kale ayaan u gudbaynaa su-aashii 13aad sababta Masar ay caanka ugu tahay waxbarashada diinta Islaamka waa in ay ku taalo ba jaamacadda Malik Sacuud ta jaamacatu al-Azhar ja jaamacadda Oxford xa jaamacadda Harvard haddaba jawaabta saxda ah waa xarafka ta jaamacadda al-Azhar su-aasha ku xigta 14aad ra-iisul wasaarihii ugu horeeyay ee dalka Suudaan waxaa lagu magacaabaa ba Ismaaciil al-Ashari ta Maxamed al-Mahdi ja Cumar Mukhtaar xa Cusmaan Cabuud haddaba jawaabta saxda ah waa xarafka ba Ismaaciil al-Ashari su-aasha ku xigta ee 15aad dalalka galbeedka Afrika waxaa ka mid ah Zambia iyo Zimbabwe Ghana iyo Guinea Masar iyo Suudaan Jabuuti iyo Eritrea jawaabta saxda ah waa xarafka ta Ghana iyo Guinea su-aasha ku xigta 16aad dalkii ugu horeeyay ee Saxaraha ka hooseeya ee qaatay xornimada wuxuu ahaa Senegal Nigeria Ghana Liberia haddaba jawaabta saxda ah waa xarafka ja oo Ghana ah su-aasha ku xigta ee 17aad sababta Senegal dadkoodu badankoodu u haystaan diinta Islaamka waa Islaamka oo gaaray waqti hore waqti dambe waqti dhow weli aan gaarin haddaba jawaabta saxda ah waa xarafka ba Islaamka oo gaaray waqti hore su-aasha ku xigta ee 18aad haddii aan u gudubno weli waxaad daawanaysaan imtixaanka xalinta fasalka sideedaad 2023 maadada cilmiga bulshada haddii muuqaalkan uu kusoo gaaray marka hore like garee saaxiibadaada la wadaag mahadsanediin su-aasha 18aad caasimadda dalka Mali waa ba Bamako oo ah jawaabta saxda ah ee aan ka dooranayno su-aasha ku xigta 19aad Angola waxa ay xornimada ka qaadatay dalka Faransiiska Boortaqiiska Ingiriiska Spain haddaba jawaabta saxda ah waa xarafka ta Boortaqiiska su-aasha ku xigta 20aad hogaamiyihii ugu horeeyay ee dalka Zambia waa Nelson Mandela Ian Smith Kenneth Kaunda Robert Mugabe haddaba jawaabta saxda ah waa xarafka xa Robert Mugabe su-aasha 21aad dalka Zimbabwe lacagta laga isticmaalo waa dirham diinaar rand dollar haddaba jawaabta saxda ah waa xarafka xa dollar sababta Koonfur Afrika muhiim ugu tahay isu socodka dunida waa inay maamusho ba surinka rajada suuban oo ah jawaabta saxda ah xarafka ba su-aasha ku xigta ee 23aad dhigta kala barta dhigaha waxaa loo yaqaanaa dhulbare dhigdhexe kulaale midna haddaba jawaabta saxda ah waa xarafka ta dhigdhexe su-aasha 24aad xariijinta kala barta xariijimaha loolka waxaa loo yaqaanaa Greenwich kulaale dhulbare cirif jawaabta saxda ah waa xarafka ja dhulbare su-aasha ku xigta 25aad tirada xariiqmaha dhiguhu waa jawaabta saxda ah oo ah xarafka xa 360 digrii ayaan ka dooranaynaa oo tirada ee xariiqmaha ay gaarayaan oo ah 360 digrii waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan fadlan la wadaag saaxiibadaada mahadsanediin